إن لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan uga tacsiyeenayaa dhacdadii naxdinta lahayd maalnimadii shalay ka dhacday magaalada Laascaanood ilmo yar oo 5 jir ah oo shalay 5tii galabnimo ku dhacay suuli ku yaala magaalada Laascaanood kaasoo ilaa hadda iyo saacadan aan joogno sidii aan geeri iyo nolol mid ahaan kii lagu helaba ilaa iyo hadda lagu guda jiro sidii loo soo saari lahaa aan ilaa haddana gacan lagu haynin baaritaankaas intii lagu guda jiray xaaladda inanka yar sidii suuligaasi looga saari lahaa geeriya nololba waxa ku dhintay mid kamid ah askarta dabdamiska maamulka SSC Khaatumo Allah u naxariistay Maxamed Xasan waan uga tacsiyeenay qoyskiisii qaraabadiisii ehelkiisii asxaabtiisii iyo guud ahaanba shacabka reer SSC Khaatumo isagoo wuxuu dhintay shacabkiisa isagoo wuxuu dhintay shacabkiisa maartay u adeegaya isla markaasina naf kale isla badbaadiya yutiisa ku waayay sida diinteenu sheegtay waa shahiid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto qabrigan ha waasiciyo runtii waxaan bogaadinayaa oo kale maamulka wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaduna si fiican arintaasi ilaa shalay ilaa maanta oo wasiirku uu taagnaa isagoo la arkay godka qodaya waxa kamid ah duqa magaalada Laascaanood waxa kamid ah xogayaha waxa kamid ah guud ahaan bulshada reer Laascaanood oo runtii haween iyo rag bale oo aan u kala hadhin sidii xaaladaasi mucjisada ah ay qayb uga noqon lahaayeen qof kastaabana mid maaragtay xoogiisa sadaqeeya iyo mid maaragtay dadka la dareenaba ay halkaasi tunaayeen oo ilaa iyo hadda xaaladaasi lagu jiro waxa kale isaguna goobta tagay oo booqday isaguna madaxweynaha maamulka Khaatumo Mudan Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye oo isaguna goobjoog arintaasi ka ahaa isagoona halkaasi waalidkii ilmaha dhalay iyo qoyskii askarigu ka dhintayba u tacsiyay waxaan leeyahay shacabka reer SSC Khaatumo Ilaahay subhanahu wa ta'ala samriye iimaan ka siiyo wiilkaasi isagoo nafta badbaadinaya ku geeriyooday waxa kale oo jira askari isaguna dhaawaca oo askarigi labaad isku dayay godka inuu galo oo ilmaha yar uu soo saaro askarigaas wuxuu sheegay in sagxadda hoose uu ugu tagay maxaa la yiraahdaa ilmihii yaraa oo salka hoose yaala marka isaguna waa sumoobay isaguna wuxuu yaala dhakhtarka maxaa la yiraahdaa dhakhtar isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood waxaan leeyahay isagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u boogadhayo xanuunkaas iyo kurbadaasna Ilaahay ka dulqaado hooyooyinka SSC Khaatumana waxaan leeyahay runtii caruurta yar yar goobaha suuliyada ah afafkoodu ay weeyihiin runtii ha laga taxadaro oo ha laga ilaaliyo dawladda SSC Khaatumana waxaan leeyahay hal la tayeeyo ciidamada dabdamiska ama ciidamada gurmadka marka runtii madaxweyne Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye isaguna waa ku mahadsan yahay inuu maartay u tacsiyay oo uu la dareen noqdo shacabkiisa reer SSC Khaatumo waxaan leeyahay mudan madaxweyne waa ku mahadsan tahay waana shaqadii maartay lagu yigmaday ina dadkaaga aad runtii la dareen noqoto dadka maartay leh maxaa loo soo saari waayay ilmaha yar ama dhalilaha ka dhigaya wadamo inaga dawlad badan inaga dawlado waaweyn ama wadamo waaweyn oo dawlado waaweyn oo awood leh ayay mararka qaar ay dhacdaa in ay 5 casho iyo 6 casho ay soo saari waayaan qof maaragtay saasoo kale god ugu dhacay ama boosaneero ha noqoto ama godad kale ha noqoto marka waa qadar waxaan leeyahay taasina dadka shaarka dawladda ku soo gabanaya dawladda doonayna ku dhalilaan waxaan leeyahay waxaas wax dhaliil ah ma noqonayso waa qadar وكذلك فإنما يقول الله كن فيكون إلهي سبحانه وتعالى مركو قدره إن هلا لصو صارو أمرك إلهي كل عضو أي دعسة إلا لصو صارو مركو عليه هاي مامولك يعيد مدى دبدبسك يجود هان دولة دبا على الشقينو تدخل حي معنا كويا شان ومركا النقطان تدسكو دوبا ودولة دو قرب يقاشان بوا مركو عليه هاي إلهي سبحانه وتعالى قويسك يرنا السمري إيمان المهير كسيو waxa isaguna halkaas ila xal taagnaa oo qayb weyn ka qaatay isla markaasna shacabkiisa la dareenaha gudoomiyaha gobolka Sool
cismaan waxaan leeyahay isagana ilaahay barakeeyo dhammaan mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer maxaa la yiraahdaa xukuumadba arintaasi way u taagnaayeen ilaa xalay ilaa shalay iyo ilaa maanta marka waxaan leeyahay gudoomiyaha iyo dhammaan xukuumadduba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waajib ay leeyihiin bay qabsadeen